assalaamu calaykum. dad badan oo naga mid ah way maqleen ugu yaraan Andalus, balse laga yaabo inaysan aqoonin meesha ay ku taalo. Waa dhul maanta uu qof kasta yaqaano, balse in yar oo naga mid ah ay taariikh ahaan u og tahay dhulkaasi inuu 805 sano ahaa dhul ka mid ah dhulalkii muslimiinta. Aan wax yar kaaga sheego juqraafi ahaan dhulkii Andalus iyo weliba dhul Islaam ah kii ugu dhowaa. Andalus dhul ahaan maanta waxaa loo yaqaanaa marka la isku daro labada dal ee Spain iyo Portugal. Dabcan qof waliba oo naga mid ah maanta si wanaagsan ayuu u yaqaanaa dhulka Spain iyo Portugal. Maanta kadib ha la yaabin haddaad aragto qof Spanish ah oo ku leh awoowayaashiidii hore ayaa muslimiin ahaa. bed ahaan dhulkii Andalus waxaa lagu qiyaasaa inuu ahaa 600,000 oo kiiloomitir oo square ah. dhulkaasi sidoo kale waxaa lagu tilmaamaa inuu jasiirad u eka yahay sababtoo ah 3 jiho waxaa ka xiga biyo. Andalus waxay ku taallaa koonfur galbeed Yurub, maadaama 3 dhinac biyo ka xigaan waxay dhul ahaan xuduud la leedahay waddanka Faransiiska. weliba dhulkaasi waa dhul aad buuraley u ah. bari waxaa dhulkaas ka xiga badda dhexe ama badda Mediterranean-ka badda loo yaqaano. galbeedkana waxaa ka xiga badweynta Atlantic. maadaama aan dhahnay 3 dhinac biyaa ka xiga waxaa noo haray keliya hal dhinac, waana dhinaca koonfureed. waxaana Andalus ama Spain maanta kaga beegan koonfur waddanka loo yaqaano Morocco. weliba gacan aad u yar ayaa u dhexeeya Spain iyo Morocco. meelaha qaar gacankan masaafadiisa waa 13 kiiloomitir halka meelaha qaarna uu gaaro ilaa 15 kiiloomitir oo keliya. gacankan waxaa loo yaqaanaa madiiq Jabal Tariq ama Gibraltar. aan kuugu daro gacankaas waa gacanka isku xira waqooyiga Afrika ama Maghribul Islaami iyo qaaradda Yurub, si gaar ahna waddankii Spain oo ahaa xilli sii horreysay dhulkii Andalus. waan fahanay meesha ay ku taalo Andalus iyo weliba dhulka maanta loo yaqaano. kaalay igala soo tallaab madiiq Jabal Tariq ama Gibraltar ee nakeen waqooyiga Afrika ama Maghribul Islaami. weliba xoogaa sano dib noo celi si aan u fahno xaaladda waqooyiga Afrika oo ah dhulka isku xira Maghribul Islaami iyo Andalus. yay ahaayeen dadkii dhulkaas deganaa. Maghribul Islaami oo ka koobnaa dhulka maanta loo yaqaano waqooyiga Afrika ee Morocco, Jazaa'ir ama Algeria, Tunis, Libiya iyo weliba Mauritania. waxaa dhulkaas deganaa qabaa'ilka loo yaqaano Berber ama Baraabira. waxay ahaayeen dad sanamyo caabuda inta uusan islaamka soo gaarin ka hor. weliba dad dagaal badan oo dhib badan ayay ahaayeen qabiilkii Baraabirada. dhulkan waxay muslimiinta furteen 23 hijriyada, waaba xilli sii horreysay. laakiin mar waliba diinta way ka noqon jireen dadkii dhulkaas deganaa oo qabaa'iladan way islaamaan haddana islaamka way ka ridoobaan. qabaa'ilkaas iyo ciidankii muslimiintana way isku rafaadeen ilaa ugu dambeyntii uu diinta islaamka u saldhigay dhulkaas dhammaadkii sanadkii 85 ilaa 86 hijriyada Muusa ibnu Nusayr qa'idkii ciidankii muslimiinta xilligaas. balse waa kuma geesigaas caabidka ahaa oo raabidka ahaa oo salka u dhigay diinta islaamka dhulkii waqooyiga Afrika oo ay qabiiladan aadka u mayalka adag ee dhibka badani deganaayeen. Muusa ibnu Nusayr rahimahullah wuxuu ahaa taabici, sida ay qaar ka mid ah saxaabadii nabiga sallallahu calayhi wasallam sheegeenna. Nusayr oo ahaa aabbaha dhalay Muusa ibnu Nusayr wuxuu ahaa wiil yar oo nasraani ah. si aad u fahanto qiimaha ay leedahay furashadii muslimiinta ee dhulka gaalada u fiirso. wiilkan Nusayr ah waxaa lagu soo qafaashay dagaalkii Aynu Tamar oo uu hogaaminayay geesigii Khalid ibn al-Walid radiyallahu canhu. weliba wiilkan xilligaas waxaa la barayay injiilka iyo waxyaabo badan oo ku saabsan nasraaniyadda. marka ay soo qafaasheen Khalid ibn al-Walid radiyallahu canhu iyo raggii la socday, wiilkan waxay bilaabeen inay baraan diinta islaamka. welibana waa wiil 13 ilaa 14 jir ah. markaan diinta islaamka ayaa qancisay, wuxuu aqbalay inuu diinta islaamka qaato, sidaas ayuuna ku islaamay. u fiirso, waa lasoo qafaashay, cidna ma qasbin, keliya diinta ayaa la baray. wuu aqbalay inuu islaam noqdo. weliba xilligaas waxay isku waqti ahaayeen Nusayr wiil yar oo la dhihi jiray Siriin oo naqday markii dambe Abu Muhammad ibnu Siriinka aad wada garanaysaan. ka waran hadduu Nusayr iska ahaan lahaa wiilkii yaraa ee nasraaniga ahaa oo aysan ciidankii muslimiinta soo qafaalan lahayn, maanta halkan uma fadhineen inaan ka sheekeenno qiso ku saabsan dhul dhan oo 800 oo sano ay islaamka maamulayeen. waayo wiilkan Nusayr ah wiilkiisa oo isna geesi kale ah ma furan lahayn Andalus ee wuxuu iska ahaan lahaa uun baadari meelahaas dhulkii Shaam wareega ama muslimiinta dhiba. laakiin Allah ayaa wiilkan iyo aabihiisba islaamka ku galladaystay una qadaray inay taariikhda muslimiinta baal dahab ah kaga jiraan. Nusayr wuxuu noqday geesi caalim ah, weliba mujaahid ahaa, ilaa uu ka noqday hogaamiyihii ciidankii muslimiinta ee dowladdii Umayyiyiinta, taasoo ka dhigtay Muusa ibnu Nusayr inuu ku barbaaro guryihii khulafada muslimiinta. weliba uu isna dagaalyahan noqdo ilaa markii dambe looga dhigay hogaamiye ciidankii muslimiinta ee dhulkii Masar. uu markaas waali ka ahaa Cabdicasiis ibnu Marwaan oo ahaa Cabdimalik
ibnu marwan khaliifkii muslimiinta ee dowladii umawiyiinta walaalkiis. sanadkii 85 hijriyada waxaa muusa ibnu nusayr laga dhigay waaligii qaaradda afrika ee muslimiinta. markii uu waaliga afrika ka noqdayna wuxuu diinta islaamka ku sugay dhulkaas, sababtoo ah dadkii reer afrika waxay aad u dhaleecayn jireen cuqbah ibnu naafic radiallahu canhu oo isaga ka horreeyey. muusa ibnu nusayr wuxuu isweydiiyey, war dadkan intay diinta islaamka qaataan haddana ka ridoobaya, weliba walaalahooda muslimiinta la dagaalamaya, sidee wax uga qaldan yihiin? kuna darso cuqba ibnu naafic radiallahu canhu waxaa dilay qabaa'ilada baraabirada ee deganaa maqrib, isagoo maqribta fog kasoo laabanaya oo u soo socda qirawaan oo maanta tuunis ah ayay jidka u galeen wayna dileen. muusa ibnu nusayr kadib wuxuu u fiirsaday sababta ay arrintaas u dhacayso, weliba ay usoo laalaabanayso inay baraabirada diinta soo galaan haddana ka baxaan oo ay ciidankii muslimiinta la dagaalamaan ama ay jidka u galaan. wuxuu ogaaday sababta dhanba inay tahay laba arrimood uu isagana weliba aad isaga ilaaliyey. markaas kadibna ilaahay diinta ku sugay dhulkaas iyo weliba qabaa'ilkii berberka loo yaqaanay ee dhulkaas deganaa. labadan arrimoodna waxay kala ahaayeen kow, in cuqba ibnu naafic iyo raggii la socday ee dhulka u furanayeen si dhaqso ah, magaalo marka ay galaanba waxay uga gudbayeen magaalada ku xigta, waana sababta keentay in inta la hareereeyo ciidamadii muslimiinta qaarkood in la laayo. muusa ibnu nusayr wuu iska ilaaliyey arrintaas oo si tartiib ah ayuu u bilaabay inuu magaalaba mar furto, weliba markuu magaalo furto oo uu saldhigto oo uu ku xoogaysto isagoo feejignaan ku jira, sidii khaalid ibnulwaliid oo marka uu magaalo furtaba ciidan buu magaaladaas dejinayaa si aan loo dhabarjebin ama aan hadhow jidka loogu gelin, taasoo ku qaadatay maqrib oo dhan inuu ku dhowaad 7 sano ku furto kuna suga diinta islaamka, halka cuqba ibnu naafic uu bilooyin keliya dhul badan oo maqrib ka tirsan ku furtay. arrinta labaad waxay ahayd in qabaa'ilkii meeshan deganaa aanba diinta islaamka si wanaagsan loo barin oo ay aad ugu yareed barista diinta islaamka. sidaas darteed buuna muusa ibnu nusayr raximahullahu taabiciyiin badan uga soo aruuriyey dhulkii xijaas iyo shaam si ay dadka diinta islaamka u baraan. dadkii diinta islaamka way jeclaadeen, waxayna bilaabeen inay diinta koox koox usoo galaan ilaa qabaa'ilkii berber oo dhan ay noqdeen muslimiin, welibana qayb ka ah ciidankii muslimiinta ee maqrib. markii muusa ibnu nusayr uu cagaha dhulka u dhigay diinta islaamka dhulkii maqrib oo ay markaan ciidan u yihiin qabaa'ilkii reer berber, waa inuu tallaabada xigta qaado. tallaabada xigtana dabcan waa dhulkii andalus. muusa ibnu nusayr wuxuu furtay dhammaan dhulkii waqooyiga afrika marka laga reebo hal magaalo oo magaceeda la yidhaahdo sabta. magaaladan sabta waxay maanta dhacdaa wadanka morocco. waxay magaaladaas ku taallaa gacanka jabal taariq oo ay xuduudiisu ku yaalaan labada dekad ee kala ah dekada tanja iyo dekada sabta. weliba sabta waxay toos ugu aadan tahay madiiq jabal taariq. sabta ilaa waqtigan aan muuqaalka diyaarinayo lama furan oo ma jiro ciidan muslimiin ah oo magaaladaas galay, balse dekada danja waxaa furtay ciidankii muslimiinta, waxaana hogaamiye looga dhigay nin geesi ah welibana taariikhda muslimiinta caan ku ah, waana taariq ibnu ziyaad raximahullah. taariq ibnu ziyaad wuxuu ahaa nin ka tirsan qabiilkii reer berberkii aan kasoo sheekaynay sida ay u dhib badnaayeen, balse markan waa hogaamiye iyo weliba waaliga magaalada danja. ciidankiisa muslimiintana waxay isku diyaarinayaan inay diinta sii fidiyaan, waxayna doonayaan dhulkii andalus inay gaaraan. furashada dhulkii andalus ma ahan aragti ku cusub muslimiinta oo waxayba jirtay ilaa xilligii khaliifkii cusmaan ibnu cafaan radiallahu canhu, waayo qustantiniya oo ahayd magaalo ku taala dhulkan maanta turkiga loo yaqaano waxay gaashaanka u daruurtay xamlooyinkii ay muslimiinta wadeen oo xilligii cuthmaan ibnu cafaan radiallahu canhu ciidankii muslimiinta ilaa aasiyada hoose way gaareen. laakiin furashadii qustantiniya ma ahayn mid sahlan, sidaas darteed buu u dhahay cuthmaan ibnu cafaan radiallahu canhu, qustantiniya waxaa laga furan doonaa dhanka badda ee adinka haddaad furataan dhulka andalus waxaad ajarka la wadaagaysaan kuwa furan doona qustantiniya insha allah. waa in andalus la furto kadib yurub oo dhan lasoo dhex maro ilaa badda madow laga soo dhaco oo galbeed laga soo galo magaalada qustantiniya. waa sheeko dheer, laakiin in la soo gaaro andalus agagaarkeeda ayaaba qaadatay waqti dheer ilaa ay soo gaartay 91dii hijriyada oo ah xilligan ay muusa ibnu nusayr iyo taariq ibnu ziyaad joogaan waqooyiga afrika, gaar ahaanna magaalada tanja ee afka ku haysa madiiq jabal taariq. balse xusuusnow, magaalada sabta weli waxaa gacanta ku haya gaalada. muusa ibnu nusayr wuxuu rabaa inuu andalus gaaro, balse waxaa hor yaallo dhowr carqaladood ama mushkiladood, iyadoo aan xal loo helinna ma aadi kariyo andalus. mushkiladahaas waxaa kow ka ah dhulkii maqrib iyo andalus waxaa u dhexayso masaafo bad oo 13 kilomitir ah, mana haystaan ciidankii muslimiinta wax doomo ah. muslimiinta furashooyinkooda dhan waxay badanaa ahaayeen kuwo dhulka ah oo weligood bad ma aysan
marin, haddii ay mareenna ma ahayn midan oo kale. mushkiladda labaad ee Muusa ibnu Nusayr haysata waxay ahayd jasiiradaha Bilyaar ama Balearic Islands oo Andalus iyo Maghrib u dhaxeeya. waxaa degan markaan ciidankii Roomaanka oo sidaan horey u sheegnaba Muusa ibnu Nusayr waa hogaamiye inta badan dhabarkiisa iska xajiya. markuu magaalo furanayana sidaan hore usoo sheegnay aad buu isaga ilaaliyaa dhabarjebinta. jasiiradahana carqalad bay ku yihiin duulaankiisa. mushkiladda saddexaad ee haysata Muusa ibnu Nusayr waa in dekadda Sabta weli aan la furan oo waxaa haysto nin lagu magacaabo Julian oo Nasraani ah, waana dekadda toos ugu aadan madiiq Jabal Taariq. ninkan lagu magacaabi jiray Julian wuxuu xiriir wanaagsan kala dhexeeyay boqorkii hore ee maamulayay dhulkii Andalus ama Spain oo lagu magacaabi jiray Qaydasha. laakiin Qaydasha waa la afgambiyey oo boqortooyadiisii waxaa la wareegay nin lagu magacaabi jiray Rodrigo. Muusa ibnu Nusayrna kama gudbi karin madiiq Jabal Taariq waayo Sabta waxaa xukumaya ninkan Julian ah. inkastoo ay Julian iskhilaafsanayeen Rodrigo, haddana waa gaalo oo isku halayn ma lahan. mushkiladda afraad waxay tahay ciidankii Muusa ibnu Nusayr waxay ahaayeen kuwa xadidan waayo ciidanka intiisii ugu badneed wuxuu u kala qaybiyey Maghrib oo dhan. hadduu ciidanka dhan soo aruuriyana waxaa laga yaabaa inay qabaa'ilada qaar qaska bilaabaan Maghrib. ciidankan yar ee jooga magaalada Tanja oo uu wato Taariq ibnu Ziyaadna laguma furan karo Andalus. mushkiladda shanaad ee haysata Muusa ibnu Nusayr waxay tahay Andalus markaan waxaa maamulo Rodrigo oo ah nin ciidan badan leh, dhufeysyo badanna u qodan yihiin, qalcado badanna u dhisan weliba ciidankiisa iyo awoodiisana ay tahay mid aad u adag. mushkiladda lixaad oo ah mushkiladda ugu dambayso ama mushkilado badan oo aanan ogeyn annaga oo haysan karin xilligaas Muusa ibnu Nusayr waxaa ka mid ah dhulkan Andalus waa dhul aysan waxba ka aqoon muslimiinta, wax xog ahna kama hayaan, waana dhul aad ugu cusub ciidankii muslimiinta. dhul ahaan markaad Andalus u fiirsatidna waa dhul aad ugu adkaa ciidankii muslimiinta waayo waa dhul buuro miiran ah, waa dhul webiyo badan leh, harooyin badanna leh oo ay adag tahay in ciidanka fardo ama agabka kale ee dagaalka si sahlan isaga kala gooshiyaan. sidee Muusa ibnu Nusayr ugu suura gashay inuu ka gudbo ama uu ku xalliyo dhammaan carqaladahaas ama mushkiladahaas aan soo sheegnay? markii ay cagta saareen ciidankii muslimiinta dhulkii Andalus maxaa ku qabsaday? insha Allah waxaan ku falanqayn doonaa qaybta xigta ee taxanaha taariikhda dhulkii Andalus ee la socod wanaagsan.